taariikh baan leeyahay oo ummadda Soomaalida iyo ummadda muslimiinta waddankan ay aqoon badan u leeyihiin intaan siyaasi ku jiray iyo hadda intaan wasiirahay inaan meelaha diinta lagu xusaayo madaarista masjidada masaakiinta inaan u gargaaro oo diinta aan difaaco banaanka iyo gudaha baarlamaanka markaan ahaa xildhibaan marka magaalada Mandera baan tagnay masjid qurax badan oo masjidada gobolka Waqooyi Bari weli kaasoo laga dhisin ayaan u kacnay annaka iyo madaxda siyaasiyiinta iyo barasaabka Mandera barasaabka Marsabit masjidkii waan furnay marka waxaan dadka ma naseexaynayay ummadaan la hadlayay waxaan yidhi masjidkan saa u fiican waa inuu noqdo masjidka waa in loo raadiyo imaam iyo muaadin iyo culimo kale oo kutubka Ilaahay laga dhigo tafsiirka laga akhriyo oo 24 saac masjidka la caamiriyo oo madaaris iyo taxfiidna hadda way jiraan meeshaas caruurteena la keeno sidii hadee aad ogtahay horta al-sunna wal jamaa qof kasta ayaa al-sunna wal jamaa aniga kula hadlayo al-sunna wal jamaa oo al-sunna wal jamaa hadda dad iskale oo gaar u ah laakiin aniga waxaan ka sheegay masjidka waxaan dhahay ha laga ilaaliyo qolooyinkan takfiirka iyo qolooyinka walaalahanaga oo suufiyiinta ayaga naftooda qolooyinkan markay masjid dhisaan waxay dhahaan dadka kale laga ilaaliyo marka horta waxaan dhiirahaa arintaas oo waxa u tagay inaan nasiixad bixiyo marka hadii jiraan horta dadka xumaaday oo muslimiinta qaybka waxaan waa raali gelinayaa inkastoo fikradeyda aan qabo haddaan ahay aadan bare ducaale aan bedelaynin aan ka dhaxgala horta culimadii Kenya ma ahayn laga soo hadlay culimada Soomaaliya iyo hay'adaha khaasatan magaalada Muqdisho marka ayaa ku celcelin culimada Kenya waa dad aan 20 sano la soo shaqeynayay masjid jaamica culimada waaweyn oo Soomaalida waxa intuu soo fariistay hadlaana ma arkin marka waxa dhada culimada Soomaaliya ama culimada kitaab gaab ma sheegaysa aan ku sheego intaan wasiir noqonin intaan xildhibaan aan ahaa iyo intaan majority leader haday noqoto diinta iyo kursiga aan ku fadhiyo horta diinta ka muhiimsan marka horta hadii wasiirka difaaca iyo majority leader iyo xildhibaan township waxa ka soo hormari diinta islaamka oo aan ummadda muslimiinta aan kamid ahay ka adii mid ay qalbi ka galin aadan bar waa wasiir difaaca marka sidoo ahaan jiray oo xagga uu diinta mowqif uu qabay diinta waa iska bedeli ma yadafiri ana waxaan nahay maamulkan ka hadla maamulka annaka walaalkaanaga rooba iyo dadkii masjidka dhisay marka aan wareejeen soo inaad tala bixiso mo annaka waxaan nahay masjidkan qiimaha leh waa inuu noqdo masjid anfaco ummadda waa inuu noqdo masjid salaada kaliya lagu tukay ay noqon waa inuu noqdo masjid kutubka Ilaahay lagu tafsiirkiisa ummadda loogu sheego waa inuu noqdo masjid laga khudbeeyo al-sunna wal jamaa لكن متى أنا تكفير متى جرسني سوفيين ترى متى جرسني arrimo badan baan soo qaraasanahay waxaan leedahay haday jiraan dad rabaan inay ummadda muslimiinta waddankan degan iyo bulshada Soomaalida oo waliba Ilaahay ha karaameeye oo dadaal badan sameeyaan oo xoolooda Ilaahay badiye lacagooda aan masjidada madaaris aan ku dhisnay waxaan leedahay haday jiraan dad rabaan inay diinta khaldaan aan ka aamusno maadaama aadan bar waa wasiir difaaci aadan bar waa wasiir difaaca waddanka Kenya wala wasiirada waxaan masalaa anoo Kenyaane waxaan masalaa bulshada iyo ummadda muslimiinta waddanka hadii arin la keeno golaha wasiirada oo ladi ku waafaqsanayn sidii diinta islaamka ay ogashahay ayaa la rabaa inaan dhaho arrinkan hadaan nahay muslimiinta waddankan nama